بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ سونامي channel كسر دواو قاعد فرم بنكوزو دويننا عاو إن شاء الله وحنكار لنا naming acids سيد الله مع عاو أسيدك ينكار لنا وأنا أمر النظام يعني إن شاء الله كدون نظام يظهر أصلا يعني كدون ونسوق لي يوتيوب سيد الله مع عاو أسيدك يبيسك caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo acid insha Allah haduu Ilaahay raado tanana waxa keenay in ardadeeni ay Soomaaliyeed xoogaa isdhahay bal ma meeshan ugu yara dhiban yahay marka meeshaas aan ka hadli doonaa insha Allah sida loo magacaabo acidka ayaan ka hadli doonaa insha Allah iyadoo aan rajeynayo hadii muuqaalkan aad dhameysato in wax badan aad ka fahmi doonto sida loo magacaabo acidka iyadoo marka noocyo kala duwan laha example aan soo qaadan doono insha Allah jabtar muuqaalkan hore waxaan soo qaadan doonaa introduction ahaan insha Allah hadii uu noqdo codsigiina ama yani baahidi ay iska kawi weysana waan soo balaarinayna iyadoo marka practice badan la hayaan keenayna insha Allah haduu Ilaahay raado kaamirada caawa alaab waxa naga caawiyo Ustaad Master Xasan Taliya Cali asiga ayaa haatan insha Allah nagula hoolan dugsiga Risaala Primary and Secondary School qeybta private kana alaab wuxuu diyaar ku leeyahay in marka uu ku siiyo aqoonteena sidoo kale iyadoo ay bilaabanayaan goor dhow diiwaangelintu ay socoto arday marka online ah oo aan u dhigi doono insha Allah chemistry iyo biology kaliya muddo kooban lagu bari doono 12 arday ayaan qaadan doonaa insha Allah oo marka fasal kasta ah form 1 12 arday class waxaan qaadan doonaa insha Allah 15 arday markii aan laga buuxin hadii aad inay koorsada online ka insha Allah commission oo soo qor danayntaada haduu Ilaahay raado casharkeeni ayaan gudagali doonaa insha Allah waa Ustaad Bakar Maxamed Cabdul Ustaad Sunaami waxaan magacaabeynaa acid waxaan magacaabeynaa acid formula and name ayaa meesha noo kala qoran meeshan waxaa noo qoran HBr H2SO4 HClO2 waxaa noo qoran dabcan iyo kuwa kale iyo halka lagu sii qoran oo marka waa HC2 H3O2 dabcan waxyaabahan arnaa inaan magacaawno balse intan magacaawin ka hor ama iyadoo aan gudaha u galin ka hor marka hore waxaan isweydiinaynaa maxaa la dhahaa acid ayaa marka hore qeexi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah acid ku qeexitaanka ugu macquulsan isleeyahay waa qeexitaanka ugu wanaagsan ee lagu qeexi karo ama casharkan caawa anaga aan ka hadlayno oo aad u quseeya sawaasidatan acidku waxa la dhahaa a compound was this in which one or more hydrogen taas oo marka hal hydrogen ama hydrogena badan oo hydrogen taas oo plus ions are bounded to ay ku xirmayaan ama ay ku dabar naqanayaan to negative ion yani waxa waaye waa hydrogen plus in marka ay ku dabar naqato ama ay ku xirmato negative ion in ay ku xirmato negative ion in ay ku xirmato tusaale ahaan hadii aan soo qaadano waa kan meeshan waxaa noo qoran HF H2S iyo HNO3 iyo H2SO4 so waxaana marka ina ogaano qeexitaankan iyo cashirka ina isleehaysiina rabna marka waxa la yiri waa isku dhista oo hal hydrogen ion ama hal hydrogen ion wax ka badan ay ku dhigtaa negative ion ay ku dhigto waxa kan marka fiiri waxa dhacaya fiiri so meeshan waxaa noo qoran HF meeshan lag maxaa dhacay fiiri HT waxa la baxday plus so and here F tan waxa noqotay minus and inta soo fiiri marka le H2 labadii hydrogen waa kan balaskeeda waxay ku dhigtay marka S2 minus ku dhigtay H plus and NO3 minus marka meeshan waxaan ogaanaynaa waa compound in which one hydrogen or hal hydrogen are bounded to negative ion ay ku dhigayso negative ion waxa arkaynaa meeshan HF waxay ka kooban tahay hydrogen oo plus iyo F oo minus F oo minus ay ka kooban tahay marka kuwan ayaa marka naqanaya kuwa isku tagay oo isku dhigayaan marka waa hydrogen plus iyo waliba F oo minus am fluorine oo minus okay in so fiiri marka name of an acid magaca acidka
is based on wuxuu ku salaysan yahay the name magaca of the negative ion. You see, waxaa lagu yiri magaca acidka wuxuu ku salaysan yahay magaca negative ionka that is a part of the acid. Taas oo qayb ka ah acidka qayb ka ah. Way bal markaan aan magacaawno acid aan magacaawno oo oxygen la'aan ah. عفوا meeshaan waxaan ka wada oxygen naming acid is without oxygen waxaan magacaawayna acid aan wax oxygen ah ku jirin. Okay, example aan soo qaadan marka. Let's say in HCl waxaan soo qaadanaynaa HCl marka sidee ku timid marka waxay ku timaaday hydrogen and waxay ku timaaday chlorine. So can you see hydrogen plus and chlorine minus. So tani marka waxay ku tusinaysaa in qeexitaankeenii hore ee ahaa a compound in which one or more hydrogen ion or bounded and negative ion. يعني kan inuu yahay positive kan yahay negative. Okay, tani waxay noqon doontaa marka chloride ay noqon doontaa. But waxaan baahanaynaa inaan isticmaalo qaacidadan ah negative ion hydroic oo waxay noqonaysaa marka hydrochloric bay noqonaysaa marka. tanina waxay noqonaysaa marka hydrochloric. So negative ion and this one here. Okay, waxaan kaloo baahanahay in aan isoo agdhigno negative ionska in kuwaan kor laga xigdiyo. Okay, intaa ka soo raadinaynaa marka magaca oo negative ka ah. Negative ion is fluoride is a chloride. So waxaan leenahay marka chloride waa kasa chloride. haddii laakiin in acid la aado waxay noqonaysaa hydrochloric. Okay, forget the ka meesha ka saar waxaad ku bedeshaa ik ku bedel marka caloric ku bedel marka meeshaas ka bixi ik ku bedel. Okay, example kale negative ions weli waxaanu maanta waxaa inoo taala HBr baa inoo taala. HBr marka waxay u kala faqi doonaan sida tan oo waxaa dhacaysa H inay gaarkeeda u foqdo H plus inay u foqdo and H plus iyo maxaa kala meesha yaala Br minus. So H plus and Br minus labadan oo isku tagay ayaa waxaa ka samaysmaya HBr wax loo yaqaano. Okay, waxaan sameynaynaa marka Br ayaa waxaan ka soo raadinaynaa qaybta negative ionska. Okay, Br waxaa loo akhriyaa boromide. Ayaa loo akhriyaa. Okay, markaan saa u soo helna marka magacii oo boromide-ka ahaa ayaan agdhigaynaa marka. Okay, halkan waxaan saaraynaa marka waxaan leenahay is a boromide maadaama halkan aan ka soo helnay. Walaakiin qaybtan ee noo soo hartay qaybtan waxaan sameynaynaa hydro inaan keenno ayaan bro markaan keenna ik ku bedelaynaa marka. maxaa dhacaysa marka waxaa dhacayso sida tan waa hydropromic oo waxay ka timid H plus iyo Br oo minus ah tan oo boromide ah iyo tan oo markaa waxay noqon doontaa hydropromic maadaama qaybta acidka waa ay xaggeedii uu jiro. halkaas aan kaga gudbaynaa marka qaybtii ahayd naming acids without oxygen sida loo magacaabo acidada oo oxygeenta aan lahayn. waxaan magacaabaynaa mar kale acidyada oxygeenta leh. Okay, polyatomic ions kan in aad xifdiso istaadii waa muhiim
maybe in macalinkaaga yani uu ku keeno listi uu soo xifdi marka polyatomic ions aad ay muhiim u tahay inta badan Soomaaliya form 1 ka lagu xifdiyaa ardayda lagu xifdiyaa marka inaad soo xifdisaa loo baahan yahay inaad soo xifdiso ayaa loo baahan yahay si kale xal kale oo lagu heli karo ma jiro marka meeshaan waxa isdabayaacaya labo gadaal gala isdabayaacayso oo waxaa noo yaala 8 iyo waxaa noo yaala 8 iyo 8 salahan carbonate iyo chloride nitrate iyo nitrite marka kuwan waxaa la dhahaa polyatomic ions way waa polyatomic ions okay example ki ugu horeeya example keeni koowaad ayaan guda galnaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa HNO3 markaan soo qaadano HNO3 maxay ka kooban tahay iyada HNO3 maxay ka kooban tahay HNO3 waxay ka kooban tahay still wali waa sidii oo waa hydrogen plus iyo waliba nitrate oo NO3 ay ka kooban tahay oo ayadana minus ah NO3 waxaan ka soo raadinaynaa polyatomic ion liskeena ka soo raadsanaa okay NO3 here waa tan NO3 waxaan leenahay marka nitrate okay meeshan waxaa noo yaala marka waa nitrate okay hanaan kale marka oo aan u raacayna midaasi ayaan arkaynaa marka hanaan kale ayaan u raaci doonaa midaasi okay forget this one so meeshan waa negative ion acid markuu yahayna hydroic aan ku dareynaa example waxaa ka mid ah hydrochloric okay iodka waxaan ku bedelaynaa iodka waan bixinaynaa ayaan ku bedelaynaa okay saabayno ahayd example baynu soo qaadanay maanta waxaa inoo yaala 8 iyo iod sidaan u samaynaynaa marka sidaan u samaynaynaa have a look here inta soo fiiri marka negative ion 8 ayaa inoo yaala 8 waxaan ku bedeli doonaa 8 waxaan ku bedelaynaa ayaan ku bedelaynaa oo meeshan waxaa nagu qorneed net rate laakiin here waxaan dhihi doonaa qaybtaan markaan akhrinayno wuu ka duwanaanaysaa tii hore okay here waxaan leenahay marka is a nitrate waa nitrate ولكن here waxaan leenahay is a nitric acid and nitrate and nitric acid because here is a negative point and here is a positive point ولكن here waa positive and negative come together oo isku imaaday marka magaca acid la siinaya marka 8 waa la baabi'inayaa 8 baabi ku bedel okay taasi waa example keeni koowaad example labaad markaan aan aadno marka example keeni labaad waxaa inoo yaala H2CO3 aan kala fujino marka labadan aan kala fujino isku dhiskaan aan kala fujino waxaan leenahay marka waa 2H plus and CO3 minus 2 marka liiskeen waxaan ku laabanaynaa polyatomic ions ku laabanayna polyatomic ions waa kan marka waabtan ayada ugu soo horeeyay CO3 waa CO3 marka CO3 waxaa la yiraahdaa carbonate waxaa la dhahaa carbonate so carbonate marka waxaan sameynaynaa marka 8 waan baabi'inaynaa waxaan ka dhigaynaa marka ayaan ka dhigaynaa horta qaybtan aan qorno magaca aan soo helnay waa maxay magaca aan soo helnay waa carbonate okay carbonate so remove this one ka baabi'i waxaan ku bedelaynaa marka ayaan ku bedelaynaa okay qaybtan maxay noqonaysaa marka qaybtan waxay noqonaysaa
carbonic acid هي carbonic acid okay carbonic acid أنا وحليه carbonate so وحن بابينا نوحة A يعني مركز واحد مجعاوي إنه بولي atomic ions كا وحن سمعنا 8 وحن كفير نقلها كفير هنا هتو 8 كده ماذا إيه هتو 8 كده ماذا لو هذا بوان بابينا أنا و 8 و 8 هذا بوان بابينا هو بدل يا إك بلوه بدل يا مركز واي example كأني حاجة و HNO2 HNO2 أيان كلا فوجيني نامت HNO2 شو قال فقط هنا H plus and NO2 ما قاعد نصور هذا مقصد عالي هيد NO2 NO2 واكن NO2 ما أنت وحي لا إمادي ما قاعد هراء سوق هذا دلالة هراء سوق هذا أو net right وحن سوق هذا أنا 8 وحن سوق هذا 8 so ما أنت وحي على دلالة كدوين كي هراء net right okay قيبتها وحن قرنا هنا مركة net right مركة قرنا net right وحن أراعينا فورمولا كلا أراعينا وحكن فورموليه كلا وحواي negative هدي آيد ويمادو آيد واحد كوبدشا أوس هدي آيد ويمادو كوبدل أوس so خيطان آيد تالو أيام وحن كوبدلينا أوس ماشي إك أهيد إك وحاو قادنا الله حالا الله قادنا وآيد إيوا 8 وإنا هدي آيد 8 مادو آيد 8 مادو waxaan sameeynaa qaybta item bixinayna waxaan ku bedeleynaa aus okay tan maxay noqonaysaa marka tan waxay noqonaysaa net waxay noqonaysaa net rows acid okay qaacidan kale waxay tahay qaacidan koowaad waxay ahayd aid ku bedel ik 8 كبدل آية كبدل إك 8 كبدل إك وإما آية هديت ماذا قدر قانون كان سدحات وياه هدي آية ماذا أوز كإك net rows وياه وحإنه يالا مركا example كان الحقة وهيدروجين plus and حكالو نو يالا CrO2 or minus so ليس كين وحن كلامن دونا بولي أتوميكا وحن صورة إننا CrO2 minus وحايت هاي ما قاعد أيضا صورة اثنين أوكي واتن إن CrO2 minus وكرومايت ولي وحنا الدوية له آيت أو أنسوق هذا قاعدة ذينا okay marka meeshan waxaan leenahay marka qaybtan waxaan leenahay waxa la yiraahdaa chromite baa la yiraahdaa qaybtan marka maxaa ku dhacaya marka qaybtan waxaa ku dhacaya meeshan soo aid u dambeeyso hadii aid ay u dambeeyso aid baabi ku bedel os oo maxaa dhacaya marka fiiri waxaa dhacaya waxay noqonaysaa marka chromose ay noqonaysaa taasa marka ayadan waxaan ku keenay waxay tahay aid ayaa marka ka soo meen guurnay oo waxaan ka dhignay aus ayaan ka dhignay okay ustaadi marka xigta waxa muhiim ah ustaadi inaan fahanno exceptionska waxyaabaha laga soo reebo طبعا meeshan waxaan ku soo qaadanay c intan waxaan ugu qoran c kale ayaan ugu qoran tusaale ahaan meeshan hadda waxaa noo yaala phosphate so qaanuunkeeni phosphate ka ahaa haddii aynu u marno khalad baynu samaynaynaa oo ah waxaan samaynaynaa marka haddii maadaama 8 ay ku dhamaatay anaga qaanuun waxaan naqaanay haddii 8 ku dhamaato ikka laga dhigo marka maxay noqonaysaa phosphate may noqonaysaa marka phosphate may noqonaysaa maya oo kuwan waa laga soo reebaa kuwan marka phosphate ma noqonaya kuwan si ka duwan ayaa loo isticmaalay
waxaa la leeyahay kuwan marka meeshii ahayd in la isticmaalo ik waxaa la leeyahay uric. market phosphoric. This is a role we don't know. Ma naqaano why tan phosphoric loo dhigay phosphoric loo dhigi waayo ama phosphoric loo leeyahay maxaa waay so alas qofta ma garanay. This is a chemistry issue. So waxaan marka si xoogan ku qoro talana inaad marka kor aad ka xifdiso polyatomic ions insha Allah duu ilaahay. Second meeshaan waxa yaala iod. So ma waxaan leenahay iyadana maadaama iod ay ku dhamaatay phosphorus ma dhehna maya ee waxaan leenahay phosphorus acid. ayaa leenahay phosphorus acid. Okay, meeshaan waxaan u yaala sulfate iyo sulfide. So sulfate iyo sulfide iyaguna maxaan leenahay ilaan 8 bay ku dhamaatay gadaalgaluhu waa 8 na waxaan u naqaanaa ik in la keeno meeshaan iod na waxaan ku naqaanaa in la keeno aus. maxaa la leeyahay marka qaybtaan waxaa la leeyahay sulfuric acid baa leeyahay sulfuric acid. halka qaybtan kale la leeyahay ayadana waxaa la leeyahay sulfurous acid ayaa la leeyahay ayadana. kuwan marka ustaadi these are exceptions. kuwan marka waa laga soo reebayaa laga soo reebay dilada marka waxaa jirta yani ilaa hadda ma jirto qaanuun oo saan in loo qabto keen yani ustaado oo qaanuun loo raaco inay naqanayso phosphoric phosphorus sulfurous keen ma jirto ustaadi. marka this is marka waxaa muhiim in polyatomic ionska aan xooga saarno si marka arintan iyada aan u fahanno. waaya ustaadi weli waxaan ku jirnaa qaybaheeni marka exceptionska ahaa haddana waxaan soo qaadanaynaa HMnO4 ayadan sida u kala bixi doontaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waxay noqon doontaa H+ oo lagu daray MnO4. so magacaana waxaan ka raadinaynaa marka polyatomic ionska ayaan ka raadinaynaa insha Allah. waa kana marka waa MnO4 waxaa la dhahaa permanganate. waxaa la yiraahdaa permanganate oo waa kan waxaa la leeyahay marka permanganate. qaybtan kale maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa permanganic acid. ayay noqonaysaa. waayahay example keeni ugu dambeeya haddaan soo qaadano waa HClO ayaan soo qaadanaynaa. horta waan kala bixinaynaa sida caadiga ahayd H+ and waxaan kaloo sameynaynaa ClO ayaan markaa O- aan soo qaadanaynaa ClO-. dabcan magacaana waxaan ka raadinaynaa qaybta polyatomic ionska marka ClO waatana waa hypochlorite. so magaceedu wuxuu noqonayaa marka hypochlorite oo waa kana wuxuu noqonayaa hypochlorite. halka qaybtaan ay noqonayso hypochlorous waayahay
أستاذي هكذا سنقصوا أفمارنا إن شاء الله وقيبتني أنكم بعد كويني أحسد الله مقع وأسيدك وأستاذ بكر محمد عبد الله إيه بعض أستاذ سنام كان الله أسكدونا ذيك تجيسة سيدا أي أمان الله.